ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، arinta koowaad ee aan idinla qaybsanayo arin qalbigay ka soo go'day ee aan doonayo mar walba, waqti walba, saacad walba, meel walba dunida ku joogtaan inaad samaysaan ayaa waxay tahay walaalayaal, ha aamusina. maxaad u aamusaysaan? Allah subxaanahu wa tacaala xusa meel walba aad adduunka ka joogtaan. arinta labaad ee maanta ayaan doonaya ayaa waxay tahay, maadaama ay walaalo badan igu dhaheen dardaaran ama wacyigelin ama waano inoo soo dir oo ku saabsan dhalinyarada qof walba ayaa jecel, weyn iyo yaraan iyo da iyo wadamo walba adduunka oo dhan. dhalinyarada waxay u yihiin halbeega, salkudhiga dowlad walba ama wadan walba ama meel walba ayay u tahay. laajli dalika diinteena islaamkana si aad iyo aad ayay waxay u tixgelisay dhalinyarada iyo xaaladooda iyo habdhaqankooda, iyo in la wanaajiyo, in maaragtay la wacdiyo, lala taliyo, loo caqli celiyo, lala dardaarmo. laajli dalika anuu arrinkaasi ka duulaya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awalan waxaan weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa inuu carabkayga ku suga kelimada xaqa ah. arrinta aan doonayn inaan walaalahayga la qaybsada inuu qalbigooda ku suga. ilaahayna hanaga wada dhiga aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana. sidaad ogsoontihiin walaalayaal, adduunkanina ku noolnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u kala qaybiyey muslim iyo gaal, wax ka dhexeeya ma jira. laajli dalika ilahi wuxuu yiri huwa alladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min. laajli dalika marka haddaan usoo daadego dhalinyarada, anigoo arrinkaasi ka duulayo ayaan waxaan maanta doonaya inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan waxaan guusha, deganaanshaha, farxadda ka raadinaa meel qaldan haddaanu nahay dhalinyaro. maanta waxaa la isweydiiyaa badanaa, waa maxay guul, waa maxay deganaansho, waa maxay farxad? dhalinyarada intooda ugu badan intaas ayay raadiyaan, intooda ugu badanna meelal qaldan ayay ka raadiyaan. laajli dalika arrintaas anoo ka duulayo ayaan waxaan doonayaa walaalahayga muslimiinta ah meel walba adduunkay ku nool yihiin inaan arrinkaasi usoo bandhigaa arin ka duwan. adduunkani walaalayaal intaan ku noolnahay waa waqti yar, waqtigaas yar inaan ka faa'iidaysana weeyaan. waxaana uga faa'iidaysan karnaa qowluhu tacaala inaan wadadiisa raacnaa oo ilaahay qur'aankiisa ku jira waana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih. inaa wadada allah subxaanahu wa tacaala uu nabigeena moxamed calayhi afdal salaam wa aska tasliim uu inoogu soo dhiibay kitaabkan qur'aanka ah, kalaamullahi iyo waxyigan, inaan nabi sal slam ku dayanaa. maxaa yeelay ilahi subxana wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yiri laqad kaana lakum في رسول الله أسوة حسنة. لاجل ذلك مركا labadaasi arin anigoo ka duulayo ayaan waxaan leeyahay dhalinyarada maanta guusha iyo farxadda iyo deganaanshaha waxay ka raadiyaan meel qaldan. anigoo arrinkaasi ka duulaya marka ayaan doonayaa walaalayaal qoraal yar aan ka qoray inaan idin aqriyaa, kadibna qoraalkaas ayaan wax yar ka taataawanaya. markaas waxaan iri walaalayaal, xaqiiqda ayaa waxay tahay in maskaxdeena lala wareegay. dadka adduunka raalli ku noqday waxay go'aansadeen in maskaxdaada lala wareego, maadaama ay u baahan yihiin wada shaqayn si ay u helaan maadaama ay u baahan yihiin wada shaqayn si ay u helaan qaab ama hab ay u gaari lahaayeen hadafkooda. dadka inta ugu badan waa mid kaa doonaya caawin si aad anigu arrinkaasi sii wada ayaan waxaan yiri dadka intooda ugu badan waxay kaa doonayaan caawin si aad ma aragtay ay u gaaraan dantooda ama dantiisa. adiga muhiim uma tihid, adiga muhiim uma tihid ee waxaa muhiim u ah walaalayaal u ah sida uu ku isticmaali lahaa ninkani, siduu ku isticmaali lahaa ayaa muhiim u ah. maanta sababtaas ayaa keentay in aan dhaho guusha iyo farxadda iyo deganaanshaha waxaan ka raadinaa meel qaldan. waxaa laga yaabaa in aad og tahay in xaqiiqda ay saas tahay, laakiin aadan ku dhiiranin in aad iscelisaa oo aad fikirtaa, maxaa yeelay waa lagu wataa ee adiga isma wadid. anuu arrinkaasi ka duulaya walaalayaal ayaan waxaan
nolosheedii kusoo dhacday. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey diin aada u qurux badan, ambiya uu inoo soo diray, rusul ayuu inoo soo diray. wadadaasi qofkii raaca walaalayaal, farxadda iyo deganaanshaha iyo kalsoonida iyo jacaylka iyo maxabada iyo mawadada iyo sakiinada iyo tumaniinada iyo farxadda iyo wanaag oo dhan meeshaas ayay ku taalaa. laajli dalika ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam, diinta saxda ahi waa ilaahi subxaanahu watacaala diintiisa. dadkan walaalayaal doonaya inay ku isticmaalaan, doonaya inay kula wareegaan, doonaya inay caqligaaga, maskaxdaada, xoogaaga iyo dhalinyaronimadaada qaataan ayaa waxay tahay dad ilaahi subxaanahu watacaala uu qur-aanka ku tilmaamay, doonayo hadafkooda dhan inay tahay diinta islaamka inay ma aragtay ay dumiyaan, ama diinta islaamka ay ma aragtay ilaahi subxaanahu watacaala ay dumiyaan ama ay iftiinka ka jaraan, mana ka jari karaan, ama iftiinka lumiyaan, ama iftiinka ay damiyaan, siduu Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku yiri yuriiduuna liyudfi'uu nuura Allahi biafwaahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw karihal mushrikuun. laajli dalika marka walaalahayga muslimiinta dhalinyarada waxaan jeclaa inaan idinla dardaarma, waxaan jeclaa inaan ma aragtay aan isku caqli celina, aan isla dardaarna oo aan iswaanina. maxaa yeelay adduunkan waa laga tagayaa. Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kullu nafsin الموت يعني geerida ayaa naga horeysa, geerida ayaa nadaba socota, geerida ayaa naga hareereysan. laajli dalika bal isweydii guusha iyo farxadda iyo deganaanshaha ma waxa ku sharxayo insaan adiga kula mid ah, ama waxa ku sharxayo khaaliqii abuuray adduunkan iyo aakhiro iyo dhul iyo cir iyo wax walba. marka walaalayaal waa barnaamijkeeni aan doonaya inaan idinla qaybsado oo ahaa la dardaaranka dhalinyarada, oo aan ugu magac daray la dardaaranka dhalinyarada qaybta labaad. insha Allah biidin Ilaahi alkariim la soco anigoo ugu magac darayo isla qaybtan oo ah guusha waxaan ka raadinaa haday noqoto farxadda, deganaanshaha iyo ma aragtay guusha waxaan ka raadinaa meel qaldan. الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن